wakiilka Somaliland u qaabilsan ururka dawladaha hoose ee Netherland Cabdi Xaamud Aleel oo 5 sano u dambeysay ku howlanaa sidii loo horumarin lahaa guud ahaanba gobolada dalka ya ururka dawladaha hoose ee Netherland oo ay wada shaqayn ka dhaxayso ururada dawladaha hoose adduunka iyo ururka dawladaha hoose ee Somaliland oo lagu magacaabo Al-Qasr iyadoo ayna xusid mudan tahay in ururka dawladaha hoose ee Netherland oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano VNG la aasaasay 1912 waxaana sidoo kale xusid mudan in 5 sano u dambeysay uu ururkani guud ahaanba Somaliland uu ka waday mashruuc lagu horumarinayo deegaanada Somaliland oo loo yaqaano Ideal mashruucan oo ay maalgelinteedu lahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee Holland ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Berbera guud ahaanba maayirada gobolada dalka ayaa ka marxaati kacay mashaariicaha horumarineed ee ay ururka dawladaha hoose ee Netherland ka hirgelisay guud ahaanba gobolada dalka waa kuwan mas'uuliyiintii kala duwanaa ee madashii lagu soo gabagabeynayay mashruucani ka hadlay in lala tashado dhammaan ururada bulshada ee degmooyinka ay maamulayaan si ay baahiyahooda dhabta ah ay runtii u ogaadaan waan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay halka ka sii wada anigana sharaf dheeraad ay tahay maanta inaan kala soo qayb galo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta markuu horeysa dhamaantiin waad ku mahadsantihiin sida milgaha iyo sharafta iyo maamuuska leh aad uga soo qayb gasheen munaasabadan hawsha badankeedii kulay sida aad wada ogsoontihiin shalay way qabsoontay oo ku beegnayd shirkii maayarada Somaliland maanta se ujeedada meesha aan iskugu nimidnay waxay ku saabsan tahay mashruuc 5 sanadood soo socday oo muxuu ahaa Ideal program dhamaantiin waad wada maqasheen baan u maleyn mashruucaas oo imika soo gabagaboobaya insha Allah rogaal celisna waan sameyn doonaa muddooyinka soo socda mashruucaas sida aad wada ogsoontihiin wuxuu ka kooban yahay wuxuu ka socdaa 7 wadan Somaliland iyo Uganda, Burundi, Mali, Palestine, Rwanda taasi waxay muujinaysaa waxaana hirgelinayay ururka dawladaha hoose ee Netherland ama Al-Qasr Netherland waxaana fangareeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Holland waad fahmi kartaan mugga iyo baaxadda uu leeyahay mashruucani khariidada Somaliland marka halka lagu sameeyay dawladihii kale la barbar dhigay intaasana wax weyn oo muxuu ahaa Somaliland jiritaankeeda iyo in mar walba lagu talagalo strategic location muhiimka ah inay tahay mandaqad istiraatiiji ah oo muhiimka ah geeska Afrika oo dhan waxaan marka hore soo dhaweynayaa maayarada waanan hambalyeeynaya maayaradii dhawaan la doortay July xilka la wareegay anagu markaan VNG nahay waxaan nahay ururka dawladaha hoose ee Netherland waxaana la shaqeynaa ururada dawladaha hoose adduunka ururkana waxa la aasaasay 1912 waad qiyaasi karaysaan da'da uu jiro Al-Qasr maalintii aanu la bilaabeynay shaqada halka ay taagneyd iyo maanta halka ay taagan tahay waxaad ka garan kartaan shirkii maayarada ee shalay la dhacay maqaamka uu lahaa iyo sida uu habaysnaa iyo constitutionka Al-Qasr oo anagu gacan weyn aan ka geysanay oo lagu ansixiyay magaalada maanta aan joognay Berbera strategic planka oo lagu ansixiyay Boorama lobby advocacy oo lagu sameeyay Burco iyo Al-Qasr oo marka hore ka koobnayd 12 xubnood oo quraata maanta 23 degmo doorasho ee Somaliland way ku dhameystiran yihiin lacag xadaafan waan ku bixinay sidii muxuu ahaa 23 degmo doorasho ay uga mid noqon lahaayeen ururka dawladaha hoose ee Somaliland insha Allah inta kale ee ka dhimanay muxuu ahaa aan degmo doorasho ahayna waxaan rajaynayaa in xubnimadeedii halka ay ka sii ballaarato aad baan idin salaamaya kullay presentationkii iyo Ideal wuxuu qabtay iyo hawlahaas oo dhanba waad idin faahfaahin doonaa maanta laakiin mashruucaas Ideal wuxuu gacan weyn ka geystay dhismaha ururka dawladaha hoose ee Somaliland anagana sharaf bay noo tahay maanta ururkii oo halku marayay 5 sano ka hor maanta halka aan soo gaarsiinay
waxaan rajaynayaa maamulku inay gacanta ku sii hayn doonaan oo ay sii dhisi doonaan inta in ka weyn ay sii gaarsiin doonaan algasal marka aad ka hadlo ururka dowladaha Soomaaliland waxa iska la meeyarada waxa iska leh degmooyinka ayaan meeyarada oran degmooyinka iska leh ururka dowladaha hoose ee Soomaaliland ownershipka shalay xataa shirkii meesha ka socday sababtaan uga baxay waxaan diidaynay inaan harayno oo algasal ay u eekaato mashruuc algasal mashruuc maaha algasal waxa weeyaan daladii ururka dowladaha hoose ee Soomaaliland meeyaradana hogaamiya mashruucna way ka weyn tahay oo ownershipkii waxa iska leh iyo mas'uuliyadeedii waxa iska leh meeyarada maanta jooga waxaan rajaynayaa in aad halka ka sii ambaqaadi doontaan anaguna mar walba talo iyo taageero iyo wixii aan ka geysan karnana waan ka geysanaynaa waxyaabaha idealka ay ka barteen meeyarada iyo xildhibaanada iyo shaqaalaha dowladaha hoose in mar walba ay xasuusnaadaan mashruuca ideal kaalinta uu kaga jiro ururka dowladaha hoose ee Soomaaliland ninkan mahadnaqina ilaahay uu mahadnaqo aad baan idin salaamayaa iminkana waxaan ku soo dhameeyaa agaasimaha ururka dowladaha hoose ee Soomaaliland Khalid Cabdi Xirsi wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ku dhow maayarka ama gudoomiyaha ururka dowladaha hoose Soomaaliland maayarka martida loo yahay Cabdishakuur xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurooyin nala jooga oo maayar ku xigay nala joogo marti sharafta kale xafiiska champion office-ka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh maanta waxaa soo idlaaday mashruucan wadnay 5 sano waxaanu bilownay 2016 ifafaalihiisii iyo qoraalkiisii 2017 ayuu bilaabmay mashruucan ideal 5 sano wadnay xaqiiqatan wax badan baanu ka qabanay wuxuu xoog saarayay horumarinta dhaqaalaha maxalliga hadaba presentationadii waxa ay ku jiri doonaan 3 degmo ayuu ka shaqeynayay mashruucan degmada Laascaanood degmada Balgubadle iyo degmada Saylac taariikh badan buu soo maray mashruucan 3 degmo markii aan dooranaynay ururku waxaad ogtihiin waa urur dowladaha hoose dalka oo dhan u sameeyeen mashruuc hadduu wadanka yimaadana si dhib yar ama fudud anagu ma dooran karno xafiiskaygu laakiin se shir weyne la isugu yimid magaalada Boorama ayaa lagu doortay 3 degmo in mashruuc ka shaqeeyo wasaaradda arrimaha gudaha qayb ka ahayd xafiiska madaxweynaha qayb ku ahaa oo iyadoo magaalooyinkii waaweynaa Hargeysa iyo Boorama iyo Burco u baahan yihiin mashruuca ayaa waxa u garteen 3 degmo ugu baahida badan leh in mashruucaas ka shaqeeyo gobonimadaana ururkeenu uu leeyahay runtii aadna waan ugu mahadcelinayaa maamulka iyo yuhunta inagu jirteen la isku tanaasulo soo biireba 3 qodob ayaan ku soo ururinayaa qodobka koobaad ujeedooyinka uu nimi waxa weeyaan mashruucan inta badan ay soo waday fanji LD-ga iyo sida looga faa'iideeyay degmooyinka uga faa'iideen iyo kartidii ay muujisay algasal oo algasal aad u shaqeysay runtii degmooyinkii ay ka shaqeysayna ay si fiican uga muuqdeen waxaan jecelahay inaan qodobka ka tago qodobka labaadna waa algasal wey algasal waxa iskale ururka dowladaha hoose ee dalka weeyaan waa institution jira una baahan in badan soo shaqeynaya una baahan intan imku jiro in kasii badan sii jiro qaynoo qaban kara shaqooyinkeena degmo kastaaba waxay tabasana qaban karaan waxaan aada ugu ammaanayaa gudoomiyaha cusub iyo maayaradii boardka loo doortay ama degmooyinkii loo doortay inay dejiyeen qorshe ay ku shaqeynayso algasal gasal iyadu ay sideeda u taagnaato waa looga warwarin mushaharkeeda laga warwarin hawl socodsiinteeda aan laga warwarin iyo sidii ay u hanan kari lahayd shaqooyinkooda imikana ay tahay institution jira oo qabta shaqo kasta oo ay dowladaha hoose imika waqti xaadirkan ay u baahan yihiin higsi leh meel u socota doonaysa inay isbeddel ku sameyso dowladaha hoose dalka marka waxaan leeyahay aada iyo aada u mahadsan yihiin
maayaradii halkan u yimi in ay sare u qaadaan ama ay ka shaqaysiiyaan iyagoo ay maayaradu kuwada cusub yihiin aada baan ugu mahadnaqaynaa waa sidaa uu sheegay axmed nuur faahiye wax kastoo cusub waa isbeddel weeyaan isbeddel buu keenaa wax wanaagsan baa inoo soo kordhay maayarada cusubna aada baan ugu hambalyeynayaa waxaan kusoo gunaanadayaa uun qaranku ciddu sugaya waa innaga wey cidda uu sugaya qaranku innaga wey cidda la doonaya inay wax bedeshaa innaga wey cidda bulshada u dhow innaga wey degmo kastaaba waa inay u tashataa inay bedesho horumarna u samayso hilaadin iyo meel fogna wax uga eegto uga baadi doonto bulshadeeda waxaan doonayaa walaalayaal inaan idiin sheego horta shalay ilaa maanta ilaa berri waxay noo socda howlo wanaagsan shalay waxay noo qabsoomay shirweynaheenii waxaynu dooranay hogaankeenii 2 sano soo socda algasal inoo hogaamin lahaa 11 qof ka kooban ilaahay ninka waxa ka baraya 11 qof inay mas'uuliyadoodii xilkooda gutaan arrimaha halkan ee magacayga uun la leeyahay maxaa laga filayaa aniga maahe xubnaha boorka ee 2 sanadood ay mas'uuliyadaha laga filayo dadku waxay naga filayaan ay halkan ka yiraahdeen marka waxaan rajeynayaa uun inaan xasuusinta iyo ku hogaaminta uun inaan leeyahay insha Allah waxa kaloo idin sheegayaa maantana iyadana waa maalin kale maantana waxaan soo gabagabaynaynaa wada shaqeyn ka dhaxaysay laba hay'adood walaala algasal iyo VNG iyo mashruuc 5 sano la soo waday oo runtii sidaa sheegteen dee guuleystay ayaynu iyadana maanta soo gabagabayno shirkiisii aynu u fadhinaa berina waxaa dhacaya kulan weyn oo xubnihii loo doortay boorka ay sii wada joogayaan oo mas'uuliyaadkoodii ay sii fahmayaan oo markaa ay qorsheysanayaan markaa shaqooyinkooda marka 3 cisho weyn oo algasal u macno weyn ayay runtii ahaayeen saasay markaa waqti aanu inooga lumine maalmo isu baahan oo isxigo waxtar leh ay u noqotay marka maayar cid laga yimaadana inteeda magaalooyinka laga keenay dee fadhiganimo uu suuro galeenba oo mashquul badan baan ugu dhici lahaa marka martigelinta iyo magaalada Berbera aynu martida ku nahay maayarkeedana oo xubinka aan dee ururka waa u mahadnaqaynaa arrimihii faraha badnaa ee ka hadasheen waxaa laga filayaa algasal ay ugu horeysay degmooyinka reer mudnaanta la siiyo marka taas waa mu'akid waa arrin aynu runtii dee mudnaana inoo ah waxa shalay laga hadlayna way ku jirtay in degmooyinka laga caawiyo borto sidii qorshe ay u dejisan lahaayeen waan halka laga dhaqaaqayo inaad qorshe fiican yeelato oo waxa aad qabanayso aad garanayso iyo goorta aad qabanayso qorshaha ay ku timaada taageeradu marka qorshe in la dejiyo shalay waa laga wada hadlay arrimaha u doodista iyo hadalkana dee intaan hoggaanka hayno u hadlimayno uun maaragtay magaalooyinka waaweyn mudnaanta halkii taal baa laga hadlayaa magaalooyinka yaryar baana ugu horeyn doona insha allahu tacaala waxaa kaloo shalay aynu isla garanay in warkeenu dadweynaha gaadho oo markaa mudnaan baa la siinayaa degmooyinka waxa ka dhacaya iyo maaragtay mashaariicda ka socota iyo waxa uu qorsheysan in warku gaadho waayo imka adduunku waa iska dunidii warkay noqotay warkaaga haddaan dadka gaadheen waxba badan laga ogaan maayo marka jirideeni yaraydee magaalana way soo noqonaysaa marka degmooyinku warkoodu waa gaadhi doonaa meel fog insha allahu tacaala waxaynu filaynaa in algasal halkay taalay meel fiican bay taalay in halkaa laga sii qaado oo weliba gobolada bariga ay u badato taasina dee waa maaragtay dalkan haddii la rabo inuu horumaro waa in lasoo gaarsiiyaa gobolada iyo magaalooyinka dalka markaa bariga dee abaar baa jirtaa colaadaha jiray mararka qaarkood markaa dee algasal inay noqoto meel laga geli karo oo dowladaha hoose ee gobolada bariga ka shaqeynaya fiiro gaara loo yeesho iyadana boorkuna waa ka wada hadli doonaa